sababtoo ah dadku waxaana kala soocaya waa luuqadaas haddaan isdheri raacno ama is-ag marnana waxaa laga yaabaa inaan isku geeli isku arihi noqono waayo waxaana kala soocaa waa heesaha ama geelina u qaadna ama arigana u qaadna ayagana waxay tooda u qaataan marka aniga waxaan qabaa haybadda aan leenahay waxay ku hoos duugan tahay af soomaaligeena iyo islaan waxyaalaha gaarkan noo aho umadi lagu garto inaan waxaas saan u ilaashano inay nagu xiran tahay waxaan rabaa inaan wax kusii darsado hadalka Warsame runtii markaad aragtid dad aad kaaga da-weyn oo aad u qiimo badan soomaalidana ku leh qiimo aad u weyn tusaale ahaan buwaagta sheekooyinka carruurta waxaa laga yaabaa in aad dib intaad u laabatid xasuustaada ay dib u laabato tusaale ahaan qoraa maamo Jawaahir maray masraxa saarneed waxay xasuusinaysa ciyaalka Soomaalida iyo hooyooyinka siday ciyaalku u haysan karaan heesi ciyaalka yar loogu heesi jiray marka ay ruftigeeda qayb dhaqanka kamid ah ilaalinta dhaqanka kamid ah marka waxaan qabaa markaad la kulantid dadka maskax weyn waxaa laga yaabaa inay maskaxdaada si un u fido marka aaday maskaxdeenu maalinta u fiday saddexda maalinna waxaan u maleynayaa 2015 maalmo ka qiimo badan inaysan soo mari doonin aad iyo aad wanaagsan tahay runtii waa tahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkii gaarka ah ugu dabaaldegayno hambaliyada ciida waxaad ka daawanaysaan telefishinka Somali News xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho martida barnaamijku waa Faadumo Cabdi Cali sidoo kale Warsame Cumar Xuseen runtii oo aan aad uga mahadnaqay runtii qaabka wacan ay barnaamijka runtii ogolaadeen inay kala qayb galaan gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa daawadayaal bal anagoo runtii ka mahadnaqayna fursadiina Warsame xaggaaga weeyaan dabcan Soomaalida afkeena runtii hawl badan bay qabtaa iyay tahay cidda mas'uuliyadda ay ka saaran tahay runtii de maanta lagu aadayn kara mas'uuliyaddeedii ayay qabtay qof kastoo Soomaaliya oo caqli shaqaynaya leh horta mas'uuliyad baa saaran marka koowaad ka saaran afkiisa wax kasta ahaado qof kastoo Soomaaliya caqligiisu shaqaynayo qalinka wax ku qori karayo mas'uuliyad baa ka saaran tugaara markaan dhaho maanta dawlad awood leh ma lihin laakiin waan rajaynaynaa inaan qaran buuxan noqono Soomaali isu timaado waxyaalaha jiro shucaaca jiro ay cadaan isu bedelaan waan rajaynaynaa taa haddii la gaaro cidda ay mas'uuliyadda ka saaran tahay waa dawlad laakiin inta taa laga gaarayo oon rajaynayno shakhsi kastoo Soomaaliya aqoon-yahan iyo ardayba mas'uuliyad baa ka saaran inuu luuqadiisa bixin la sameeyo wax lagu soo kordhinayo intii jirtay bal in la qoro si aysan u dabargoyn oo maanta dee wax markay wax ku dhaxmilmaan biyo sokor hadday isku dhaxmilmaan mid baa la waayaa luuqadeena maanta luuqado badan baa ku dhaxmilmaya iyadoo wax ku dhaxmilmaya luuqadaha ku dhaxmilmayana sanad kasta waxba kusoo kordho teeni waxba kusoo kordhayna haddana luuqada kale ku dhaxmilmayaan haddii aan waxba laga qorin inay baabaaday u dhowdahay sida luuqado horeba ay u baaba'een marka qof kastoo Soomaaliya wax qori karaya yuusan ereyba soo kordhina intii hore bulshadu hore loo qoray bal ha cusboonaysiiyo intay baabi'i lahaayeen ha qoro qof kastoo Soomaaliya caqligiisa shaqaynayana mas'uuliyad baa ka saaran maalin arrinka intii dawlad faraha ku dhigto oo dad meel u fariiso aqoon-yahana waxa laga sheekeynaya luqadda Ingiriiska dad baa jiraan shaqo kala qabin oo aqoon-yahana halkii sanada 50 erey lagu soo daraa intaanu taa ka gaarayno waan rajaynaynaa insha Allah rajada lagama quusto qalinleyda arday iyo macalinka mas'uuliyad baa ka saaran maalin arrinka in loo kaco luuqadii loo qoro Faadumo xaggaaga weeyaan dabcan aad u mahadsan tahay luuqadda Soomaaliga saan horeba haday u sheegay anigu waxaan qabaa inay qayb kamid ah sumadda qaran lagu garto ama dawladnimada ay kamid tahay su-aasha haddaan usoo laabto mas'uuliyadda yaa qaadaya Soomaaliga inuu sii dhumaayo waxyaalo noocaas mas'uuliyadda waxay saaran tahay qof kasta Soomaali ah sababtaan u leeyahay waxay tahay annaga markii dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka dhaceen kadib waxaa loo kacay ama dadkii wax soo bartay waxay u kaceen in dawladdii dib loo dhiso laakiin aniga beddelkeeda waxaan qabay in ummadda la dhiso waayo ummadda iyo dawladdu way isla burburtay marka haddaan dhahno dawladdan dhisayna ummadina ay cuqdad iyo wax isku qabaan marna dawlad fiican ma dhismayso marka ummadda oo dhistaana waxay qasab kugu tahay inaad dhistaa astaamihii ummadda lagu garan jiray oo kamid ahayd walaatinimadii iyo dhaqankii Soomaaliyeed iyo af Soomaaligii iyo dhammaan waxaas oo dhan dadkeena Soomaaliga waxaad moodaa in si kale aan wax u aragno haddii maanta calanka Soomaaliga ah la qaado
qof la arko qashin ugu sii riday waxaa laga yaabaa in magaalada dhan kusoo kacdo qofka la dilo haddana oo inay saa u ogaadaan af soomaaliga inuu sidaas oo kale yahay qayb ka mid a waxay dadka soomaaliga lagu garanayo uu yahay sida calankabana lagu garto marka maxaa rabaa inaan dhalinyarada daawanaysa u sheego haddii aadan af soomaaliga horumarinin ama aadan wax badan ku qorin baahida aad qabtid cidna ma gaarsiin kartid meelna iyaduna ma gaari karto sababta aan taa u lehay waxay tahay waxaa jirtay maamaha oranaysa af qalad aqoon maaha marka si aad aqoon fiican u heshid ood adduunyada u gaarto waa sax suu walaalkay sheegay warsama luuqadda ingiliishka markii hore luuqadda carabiga iyo ingiliishka waxaa xoog badnaa luuqadda carabiga sababtoo ah waxay tahay aada loo faafiyey waqtigii dawladihii islaamiga ah iyo asxaabadiiba kadib luuqadii carabiga horumar laguma sameyno dishineeriyadii iyo waxyaalihii aaladihii wax laga baran jiray ma la gelinin haddana waxaad aragtaa luuqadda ingiliishka horumarka ay sameynayso dunida waddan kasta percentage ba ama qayb ka mid a ummadaas baa ku hadasha luuqadda ingiliishka marka si halkaas wayna gaari doonaa usu walaalka sheegay laakiin inta aan haysano markaan meel dhigano ilaashano aan u sameyno goobihii lagu ilaalinayay waa inaan kadibna aan ka fikirnaa horumarkaasi waxyaala noocaasa waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto sida af soomaaliga lagu ilaalin karo waxaa horta inaga maqan inaan qofkeena soomaaliga ahee dhaqanka iyo ku dhegdhegan af soomaaliga inaan aad ugu hambaliyano dhiirigelino tusaale waxaan rabaa inaan usoo qaado warsama hadduu maanta dharka hidiga dhaqanka soo xidho oo dadaada soo maro waxaa laga yaaba dadka dhan inay fiiriyaano dhahaan iidib go-a shaalka aad huwan tahay keliya go-a shaalka waxaa loogu qaadanaya in laisku sawiro laakiin micnaheedu maaha baasha in wax laisku sawiro beriga hore qofka hadduu ku dhaho kaali ila istaago asu kaa sawire aniga masawira ahaa dhihi jirta mugta marka in dharkii dhaqanka xafladaha keliya aan u xirano ama sawir una naga noqoto waa wax aad u liita marka saas oo kale in af soomaaligana dadka suuganyahaniinta ah wax badan qoraa in lagu dhiirigeliyo inay sii wadaan qoraalkooda qofka haddaan buuggiisa la akrisanna kuma dhiiran doono in buugga labaad usoo saaro marka si af soomaaligu usii horumaro waa in dadka khabiirada sida warsamo kale la dhegeystaayo wax badan mataqaana dhegaha loo raarriciya aad iyo aad samxa kudiri badbaadinta iyo sida afka lagu kaydin karayo faadimo ka shaqaysay runtii aad bay ugu mahadsantaha horta waan ku raacsanahay intay sheegtay waxaa keliya ku darayaa on hooyooyinka soomaaliyeed afka hooyaa la dhaha afka aaba lama dhaho afka hooyo marka la leeyahay hooyada cunuga kusoo aawisa luuqadda hooyadii waxay taqaano buu ku hadlaa mar kastana laba qof baan u mahad celiyaa meel kastoo joogo waa hooyooyinka soomaaliyeed iyo saxaabadda soomaaliyeed hooyada cunugan luuqadii ayada ku hadlaysay markay heesaha u qaadayso hubeeya heesaha markay u qaadayso luuqadii ka bartaa idaacaduhuna qayb weyn bay ka qaateen sii noolaanshaha luuqadda soomaaliya anuu manhaj waxbarasho soomaali maan arag intaan ku hadlo tan hooyo markii laga soo tago khayr allaha siiya saxaafadda baan dhegaystayan ka bartaan oran karaya kow siday kusii joogi karayso kow horta inay saxaafadda qayb ka qaadato oo ololaha ololayaal lagu soo nooleynayo oo dadka waxaan cilmigan yaqaana lagu soo martiqaado barnaamijyada oo dhalinyarada u sheegaan luuqaddu waxay tahay iyo waxay ku socoto oo wacyigelin halkaa saxaafadda ka samayso hooyooyinka soomaaliyeedna ay dhexda u xirtaan in ubadkooda markay ingiriisi kasoo qaataan iskuolka oo luuqadda ingiriiska cunuga iskuolka uu kasoo qaato intii maanta loo soo dhigo ingiriisi ah soomaalina ayadana u sheegto si cunugii labadii luuqadood waxaa la dhahaa qofku luuqadaada adoon aqoontu kale ma baran karaysa markaad taada taqaano ubaatan kala baran karaysaa adoon soomaaliga aqoon af ingiriisi uu kugu adkaanaya marka si luuqadihii kaleo ajaanibtana yaan la baran malihi luuqadihii ajaanibtana si aan u barano maadaama cilmigii badankii uu naga galay si aan ayagana u barano teenuna yaanan ka tegin oo afkaada markaad bartaad unta kala heli kartaa waxaan ku darayaa intaa adoon baranin ingiriisi amaan daalacan talyaani amaan akriyin urdu oo heelle afkaada hooyo waxaan rabaa hadalkaasaa fiicnaa inu gunaanad noo noqdo sida uu warsama sheegay waa sax qofka dhibkan haysta waxay tahay annaga hadda arday baan nahay jaamacadahan dhiganaa maalintii o dhan waxaan lagu soo akriyaa english markaan meelahan joogno laftigeeda way nagu adkaanaysaa inaan englishka iska celcelino laakiin waxaa la rabaa qofka markuu sheegaayo wax
inuu isaga horta naftiisa iska ilaaliyo hadduu maalintii 10 erey English ku hadli jiray ama 10 erey oo Talyaani inuu 5 ka dhigo maalinta labaadna 2 ka dhigo maalinta dambena la waayo taas waxaan rabaa inaan tusaale usoo qaato maalin aan xafladaha Soomaalida ka mid joogo waa gabdhaha ku hadleen luqadda Ingiriiska mar community ama ay dhibanayeen community question aan qaba waxyaalo noocaas ah leedahay gabadha marka hooyo Soomaaliyeed meesha fadhida waxay tiri mikrofoonka intay dafto maxaa luqadda Ingiriiska ma aqoon aad u maleysay gabdhaha naga dhaafo inaad ilbaxnimaha ka aysan idinka gaarin camal saas markay tiri gabadhii waayahay tiri warkaaga waan maqlayaa hooyo mikrofoonka markay dhigtay waa safkii soo wareegaya hooyadii loo keenay markii dambe hooyadii say Soomaali u hadlaysay markii dambe waxay tiri waa in prime minister ku sidaa sameeyo marka waxa dareemi kartaa qofku markuu wax ka celinayo isagu bal aad iskaga yaray anaguna dhibku waxa noo keenay waxay tahay jaamacadihii manhajkii waxa soo ku barano waxa rabana ku soo gabagabeeyo suuraadka sheegay luqad kale ma barin karto dad luqadaada aqoon su'aal ahaan macallin baa wax ku dhiga ajnabi wuxuu ku leeyahay markuu ereyga ku fahansiin waayo dhinaca uu ka maro dadka garaas ugu fadhiyo wuxuu leeyahay u sheega luqadiina maxaa lagu dhahaa marka dad luqadda Soomaaliga garan weyso waxa Ingiriiska lagu dhaho waxaad inaad fahantid macna kuma sameynayso waayo taadiba dad lagu fahansiin karin ereyga aad fahanto ajnabiga ahi waa erey aad Soomaaliga si taqaanid laakiin ereygan Soomaaliga si aqoon inaad fahanto kugu adkaanaysa marka aad u mahadsantiin waa gabagabadii barnaamijka runtii waana munaasabada ciida waqti kooban baan idin siinayaa haddaan su'aalihi aan ka soo dhamaanay hal iyo laba asxaabtaada runtii aad hambalyo leedahay asalaamisa fadlan aad iyo aad u mahadsan tahay marka hore waxaan rabaa inaan salaamo baada Somali News farxadda ciida inaan mawduuc aad u qiimo badan kaga hadalno nasiisay aniga walaalkay kadibna waxaan salaamayaa hooyada iyo aabaheed sidoo warsamo sheegay hooyada macalinka iskoolka manhajka Soomaaliga wax ku barta waayada inta kalena haddaan qof salaamo qofna ka tago waa dhow suuqa lagu qabsanaya buugta marka si guud aan u salaamayaa walaalaha iyo asxaabta iyo dadka Soomaalinimada jecel عدروس أبد ما ستين مركو ودرت لما شغالها يو شغالها يو محل ده أجاسنا يدمان صحفيين كصور نيوز أبدا سلامية أنا أدين فاضمة يا دي عدروس أنا سيجارة نديسي سلامية خوي يا أبو ولا لها لما تقول أبدا سلامية waxaan rabaa si gaar ah u salaamo qalinleyda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto runtii waan ku faanaa qof qalinley markaan ku faanaa aad baan u salaamayaa meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ah ugu dambaandegaynay hambaliyada Ciidul Adha barnaamijka waxaan ku eedeynay uhilinta afkeena hooyo Soomaaliga waxaad ka daawanaysaan Somali News TV xaruntu ku leeyahay Muqdisho soo jeedinta waa anigoo ah Idris Maxamuud Imaan martida waa Faadimo Cabdi Cali sidoo kale Warsamo Cumar Xuseen oo runtii labadooda runtii ah laba hal door oo daayir ah Faadimo waxay soo bandhigtay buug la yiraahdo isticmaal awoodahada Warsamo sidoo kale waxa uu soo bandhigay buug la yiraahdo Maangarad aad baa runtii ugu mahadnaqaaya inay iga ogolaadaan runtii in barnaamijkan ay hambaliyada ciida runtii ay igala qayb galaan si kale laaba runtii waxaan idinku rajaynayaa farxad wanaagsan nooli kulante wad ku masantiin Faadimo iyo Warsamo ciid wanaagsan بالثغور الحسان تبعث الود مع حداء التهاني روعت بهجة الآلام طيوبا من شدى الياسمين والأرحوان من شدى